بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu dhacday arin aad u cajiib ah oo runtii aanu kala kulannay ciidamada booliska Soomaaliland qaasatan kuwa Hargeysa saldhigga Qurac Dheer maalintii Jimcihii ayaan anigoo inaan dhaawac sida oo u raba dhaawac muujin si aan referta uga qaado saldhiggaas oo ay arintaasi qusaysay oo xafadiisa ka dhacday ayay askartii gaarku igu yiraahdeen gaariga baarkinka ka dhig halkii hore dhigay baan ka qaado halkii igu yiraahdeen dhig baan dhigay inaan yar baa igu soo dhaqaaqay oo ciidanka kamid oo kii gaarka ku jiray kuwi kale meesha fadhiyeen marka askarigii igu soo dhaqaaqay baa igu yiri waad kibirsantay taada yar waan ku aqaanaayo tabatana waa maxay kibirka malcamada la igu ka keenay si fiican ilaahda soo gaariga imaad ran halka ka dhaqaajiyo halka dhig arkina maan dhig maxaad kala darta miya kibraniyad baatay deegar darra cadaan oo aan miyana kulahayn haystaagin miyana marwal qof dhaawacaan sidee miyana saldhigga barinkiisa ayna halka loo istaagin loo ma istaagin ka talo hay halka ugu tiriimka istaag ma istaag ha maxaa waad edab darantay war hay caayna diga edab daranay ruuxan day xijaabkii oo soo qabtay markuu xijaabkii soo qabtayna waxaan ku yiri war naga qaad faraa markan isagii ku jeestay uu isagina day igu dhigeen anagana is qabsanay gabadh baa soo dhaqaaqday gabadh askariyada bugeedana ku yiri noo kaxee gabadhii baa iyaduna babiga ka siisay oo anigii iyadii isagii baa wada qabtay laba askariyo kalena way noo yimaadeen saddex askari iyo gabadhii uu u yeeray oo markaa anigu gabadhii uu is qabsanay bay saddexdii askari bad u sheegay dilay hooyo gaarigii iga dambeysay baa iga soo daba degtay hooyadii markii iga soo daba degtay waarna seeleedi miyaad dilaysaan tiri iyadina waa la igu soo daray oo iyadina saddex kala qaabishay hooyina saddexdii askari baa halkii horteeda ku dilay hooyadii way xanuunsanaysaa li habeen baan dhakhtar ka soo sukiin dhakhtar ka keen aniga halkii baan lagu laayay waliba intana la jiiday oo dhulkana la jiiday oo waxaasi dhulkii ciidii yihiin ayaa jiidniinkiina lagu galiyay gudaha markiina la galiyay gudaha hore markiina la galiyay ayaa waliba naloogu daray in maxaan ku dhahday obiga dhexdiisana lagu garaaco anagu dawarka maanan hayna nin baa markaa lahaa war ka daayay taliyaha saldhiggu sidaan markii dambe ku warheli doono xanuun buu ku maqan yahay baa leeyahay xanuunsanaya taliye ku xigeenkii weeyaan ninkan la leeyay ka daaya ninkan la ka daaya la maqli waayay lix askari iyo gabadhii ay u yeereen todobadii baa na jilciyay aniga hooyadeyna la jiidayo oo marina halka xijaabadan xidhnaana laga dhigo timina la jiidayo ayaa gudaha hore la geliyay oo biga markii la geliyay feerjirbiye waxaana lagu qaraacay gacan ciidan baana martay askartuna dadka way iskugu tagaa inta waxa noo dheeray gacanta ciidanka in ku dhacday waxa noo dheeray inta maxaa la yiraahdaa garka saa u qabteen hooyadii gidaarka saa ugu dhufteen oo sida ragga u feerfeeran ilaa imkana nabaradii ku yaalaan sawiradoodina aan hayo imka waxa lagu leeyahay dhakhtarka Al-Hayaat socodkan gurigeyga u timaadeen si iskaan loo soo mariyo waxay qabto ana kii markii meeshii laga kabiyo wixii oo dib marka hore banaanka laga soo dhacay bay soo xareysteen telefoonkii dhulka ga dhacay inantii dhaawac ahaydeen wadnii lafteedii ayaa qaatay gudihii hore la geeyay markii gudihii hore la geliyay waana la xiray maqsinbaan lagu soo qufulay markii maqsinkana lagu soo qufulay ayay maxaan ku dhahdaayay inantii oo dhaawac muujintii ay siiyeen deeyo ay anagina naga xareeyeen oo aan cid meesha ka qaadaa jirin ayaa anagii noo timid oo tiri yaan dee la hadlaa waa tan laydin xidhay waxaan anaa ku cidna la hadlina telefoonkayga hadaysay ii dhiib shabagaani ii soo istaagtay telefoonkii baan soo qabtay dee dad baan garaaco waxaan doonayaa nambarkii jananka inaan helo maadaama anigii hooyadayba dilnay waxaan jananka ugu eeranayay dee waxaan islahaa waa maaragtay xubintii ugu sareysay oo halkaas cadaalad ka heli kartaa waxaan ku war helay in generaal dabagala maqan yahay cidii markaa dee nambarada ka raadinayay waxaan weydiiyey in jirto cid kale oo aan la xidhiidhi karo oo ciidanka lagaga sii tagayo kasii mas-uula maadaama jananka Jabuuti ku maqan yahay waxa la ii sheegay in la yiraahdo Cabdi Xasan Qarbash inuu yahay kusimaha jananka
inuu yahay janan ku-xigeenka isla markaa imikana uu sii yahay janan ku-xigeenkii iyo ku-sameeyey jananka ciidanka waan garaacay oo iga qaban waayey inta inantii meesha taagnayd baan taga soo dira waxaan ku yidhi taliya waa gabadh sidaasa ooda garays la yidhaahdo waan xidhannahay markaa telefoonka iga qabo waana nala dilay telefoonkiibuu igu soo celiyeyba waan ka qabta waxaan ku yidhi taliya waxaasaa nagu dhacay waana la dilay anigii hooyaday waxaan u soconayna waxay ahayd inaanu gabadha muujin u qaadno wixiiba laakiin waxa kasoo soka martay gacan ciidan baa nagu dhacday qol baana loo xidhay feerjil baana lagu garaacay si cadowtinimo leh oo ciidanku isgarab siinayo oo ciidamada booliskuna dadka way isugu tagaan qof kastoo shicibina taa wuu ogyahay oo gacan ka siman xitaa haddaad go'do la isleeyahay yaanay shakhsi gaara loo raacin ayaana loo dilay anigii hooyadayba waxaa dhacday marka ninkii sidii ugu sheegay wuxuu igu yidhi haye iminka lagu howlgelayaa aadna waad mahadsantahay adeer haye adeer adigaa mudan dee waxaan islahaaba cadaalad baad gaadhay oo madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirtee haddaad janankii weyday dee janan ku-xigeenkii baad heshay janan ku-xigeenkii markii aanu la hadalnay uu yidhi cid baan idiin soo diray oo laidin howlgelaya waxaa noo yimid taliyaha qaybta bariga muse xasan kaahin la yidhaha intii aan anagu waxaanu qabnana la eegin oo aan nabarada iyadaa aa arkaysaan cidina u jeedsanin iyo kuwo kaloo jirhka ah oo meelahana laga dilay dhabarka iyo caloosha u badan tahay si aan nabar muuqdo kalena loo ku arag oo dhaawac muujinta iyadana aanu hablaha dhakhaatiirta atusnay ay ku caddahay ayaa naloo soo diray markuu noo yimid taliyihii qaybta barigu hal shaqoo quru qabtay waxaanu qabnina lama weydiin si ay wax u dhaceenna lama weydiin halka shaqo qudhahaydee la qabtay waxaa idin la ogaada sidaan ku helay telefoonka siday gabadhan telefoon ku heshay iyadoo saldhiga ku dhex jirta waana la baaray siday ahayd baan ugu sheegay waxaan ku yidhi taliye maadaamaan anagu ciidankan islaynay oo aanan ku eeran karin oo aanan waxba kala hadli karin annaguna marka hore aanu meesha dee cabashay inaanu dad dhaawaca wax laga siiyo u keennay waxaanu anaa la xidhiidhay janankii markaan weyne janan ku-xigeenkii baan helay adigana sababta iyo sifada lagula soo hadlay waa taas cid kale oo aan ishkateeyey cidaan meel u marina ma jirto nimankanaana jaray taliyahoodina waa kana wuu taagnaa oo ka daaya buu lahaa isagaanay amar diiddo ku sameeyeyna waa kana weydii waxaan ku yidhi telefoonkaygiinbaa prioritiga la siiyey annagii dhammayna dhaawac ahayn iyo hooyadaydii meesha taallay iyo annagii hadlaynay iyo anigii soo cawday iyo anigii u xidhnaa nimankii la dilayna dilay laftoodii midna wax kasoo qaadna laguma samaynin telefoonkiiba muhiimadda siiyey taliyii oo naga baxay subaxii markuu aagu bariyay intii uu inankii yaraaye gaadhka ku jiray cadaadisna saaray uu diiday in xataa cuntona loo keeno uu diiday xataa in maxaan ku idhahdaayey qof noo soo galo oo sidan wuxu qabnona la eego waxna la weydiiyo baa subaxii markuu aagu bariyay dadkii isku wada yimaadeen faamligii iyo maxaa la yidhahdaayey dee niman kaloo aanu la hadhadalay oo iyaguna ciidan ah waxaa kaloo noo yimid ururka soolja iyo madaxda telefishinka horyaal iyo gudoomiyaha ururka soolja iyaga laftoodana way arkayeen wixii meesha ka dhacay gudoomiyaha soolja sakariya iyo madaxda telefishinka horyaalo markii aan anigu ka tirsanaa markay noo yimaadeen ay maxaan ku idhahdaa inay yidhaahdeen waan u gelaynaana inanka yara gaadhkii xitaa inta liya qaybeedka loogu dhiiba telefoonka wuu diiday annagana waxaan ugu dhacday gacantii ciidan waxaan ula heshay gardarre garab og oo waxaan qabnay baan cid yeegini telefoonka iyagii annagii muwaadiniinta ahayna ee soo cabanay ee islahayn dee madax meel ka tarita ma jirto janankii baad la hadashay uu maxaan ku dhahdaa telefoonkii naga qiimo badnaaday oon sidee wax u qabtaana la odhan oon rifeertana la siinin subaxii baan ku darinay in rifeertana la siiyo oon idhi annaguna waan dhaawacana rifeertahana la siiyo taliyininkii oo biig maxaan ku dhahday ku yidhi rifoortooyinsii nabaradana habla askarana loo soo diroona eegay sidii baa rifoortooyinkiina lagu siiyey si dhakhtarina cidinamay geynina looma ogolaanin taliya ku-xigeenkii ciidanku ee markaas saldhigga joogay ee arkayay inay ka daaya lahaa ka daaya wuxuu sameeyey si dembigeegii loo dambebeso in 3 askari oo ciidanka ka mid ah rifeerta la siiyo oo anigii hooyaday oo markii aniga la dilay gaariga ka soo degtay si dembigeega loo dambebeso ciidankii baa rifeerto in la siiyo dhakhtarkii loo diro waxay qabaana soo sheegaan oo hana la tuso annagu waxaanu qabnana cadayn baanu haysanaa
markii aan siideyntii la taagan yahay subaxii la yiri maxaa la yiraahdaa idinkuna waa dagaalanteen iyaguna waa maxay waa kana aan anagu deetana maadaama hooyadii saldhiga ku dhex matagaysay aan abaalba ku qabiinan maadaama kiniinaan loo soo dhaafin karno inankii yara wali gaadhkii joogo talakicigeenku awoodna u yeelan waa inuu xitaa naga bedelo oo ama uu yiraahdo war waxa loo sido baadhuna u siidaa oo hooyadii saldhigii ku dhex matagaysa waxaan sidhiyaad seersani saldhiga anigu hadday aniga ahaan leed kama baan soo baxeen inta jananka ciidamadu imanayo ee arintaydu dhinacuun u dhacayso laakiin hooyadii xanuunsan oo 6 ishaan dhakhtar ka soo sokoynay oo waraaqaheedii dhakhtarku gaarigaba noo saaran yihiin in maxaan ku dhaadaaye inta loo diiday in xabad kiniina dabada looga soo geliyo waxaan sidhiyaad seersan hooyada halka ugu dhimanin gacantaas imaniyo safiinkaas loo dilay oo cid gaar ah ma raacanaysidii dabeetana waxaan ogolaanay in la sii daayo bal si aan la maartay hooyadii ula tacaalo markii la soo daayay ee aan maxaa la yiraahdaa qolkii ka soo baxnay ee ay ahayd inaan kadinka ka baxno ayana la ku qasbay inaan qorno nootaayo anaku dambi geystayaal nahay dib geystayaal ciidankuna dhibana ka yahay warqadii baa la soo qoray waana loo keenay waan akhriyay waxaan ku dhimaa anaga dhibanayaal ma waxa doonaysaa inaan maryaha iska bixiyo nabarada ugu dhufateen idin tuso masaas ay ga rabtaan niidan hablahan jirkayga soo eegay iyo jirka hooyada eegay aaminaynin ma anaga dhibta waxa la yiraahdaa macnaha waa eedaysan qof ka gardaran laakiin dhibare iyo dhib geystay waxa la yiraahdaa nabarada meesha yaal cidda dhibta loo geystay iyo cidda geysatay nabarka markaa meesha yaala ayaa la yiraahdaa anagii baa dhibanayaal nala dhib geystayaal lagu soo qoray ciidankuna dhibanayaal buu ka ahaa qasab waxa nagu noqotay intii laga saxeexo dhulkii nala jiidayna waa kan naga muuqda iyo sidii saldhiga noogu xareeyay iyo in feerjiribna lala dhacay oo sidii ragana loo laayay kuwaas u saalan kuwa jirkayga ku yaala telefoonkaygan ka tusi karaa cid kasta u baahata waxaan ugu dhacday waxaan inaba caadi ahayn wixii nagu dhacay waxa soo soo maray xilligii laga wada hadli lahaa iyo xilligii gurmad iyo gargaar noo iman lahaa daanigu cid kale ma filin maadaama jana ku xigeenkii ciidanka Cabdi Xasan Qarbash garaacay oo waxaan isnidaba telefoonkayga yaalo oo haddana intuu misaxsanka ay noo yimid telefoonkayga la garaaco waa nambarkaaga iyo keenta la iguro maxaad qabtaay adeer sidee wax ku gaadheen iyo ku dilay iyo miyaan meesha tariyuhu joogin iyo midnaba aan wax ka soo qaadan ka sameeyne de gacan ciidan nagu dhacdo dabeetana waxa igala weynaatay in ciidankuna dilay waxa igala weynaatay inaan janankii nambarkiisa helay oo afka la gaaray oo wixii anigu dibi ku soo noqdeen aan waxba kala la ii tarin ciidankii waxaan u arkay gardarre garabka yogina waa janan ku xigeenka ciidanka oo aan anigu la hadlay oo aan waxba kala loo qaban markii dambana lagu qasbay si aan hooyaday ula tacaalan cisbitaal oo la helo idinka gurigeyga yimid hooyaday waxa lagu la maqayaa xayaat cadeynteedina waan idin soo bandhigaya si aan ula tacaalo hooyaday aan abaal ku qabay inaan dibgeystaha anigu ahay bilowgiina inaan kayri garasho uu garanayo iyo ciidankuba naloo dilay oo nala yidhi inayro kibraaniyada baa tahay dee bal anigu waxaan ciidanka ku sameeyey iyo waxaan qaranka ku sameeyey iyo waxaan ku dhimanay iyo maxaan ku dhahdaayay waxaan gaaray ciidan u raacayno haddaan inamadii raasi shakhsiye iyo reerahoodii u raadsanayno iyo haddii ciidanku qaranku dhibtii nagu dhacday qaadanayo anagu ciidanka qaranka waan ku soo yeeranay oo dad bukaan u keenay oo nabar ku dhaceen markii dambana anagiiba janankii ku sii yeeranay oo isniiri maxaan ku dhahdaayay muwaadinad baa wadankeedii joogtay halgula tacaalay janankiina waxa sa dhabankayga waxa ku yaala waa dharbaaxooyin rage waxaan si degdeg uga filaynaa inay noo soo jawaabaan ciidanka qaranku cid kalaba ma filaya in jananka ciidamadu haddii wadanka ku soo laabtay walawaanan xog waynin uu noo soo jawaabo haddii kalena dee warbaahintu ka arki doona waxa nagu dhacay waxaanan marti uga nahay inuu halkaa noogu yimaado waxa nagu dhacay nala eego waxaanan marti uga nahay inta ku xigeenkii ciidanka in ciidanku amar diido ku sameeyay oo maxaan ku dhahdaayay wardaay lahaay nala deyn waayo nala dilay naloogu dhaariyo hadii ay maxaan ku dhahdaay nala deyn waayo 7 askari na dul mareena oo isagu marag noo furo hadii ilaa anagu ciidanka nimada shicib la iskuma dhaxlayna saldhigaan isku laynay hadii maxaan ku dhahdaa oo lagu dhex dilay hadii maxaan ku dhahdaayay anagu dambiga leenahayna laamaha cadaaladda nala waafajiyo hadina laga gardaran yahay in inta nala dilay waliba qolna lagu xidhan waliba janankii garaacana waliba anaga nala baadho ka xabadkii inay dabada uga soo gashay hooyadii la diido
annagina maxaan ku dhahdaa sidaa dhabankayga iyo jirkayga ragu galo nala dilo hadday dawladdu daacad ku tahay oo ay sidaa rabto oo la isla ogyahay oo inaga jana ku xigeenka ciidankan u dacwoonay war degdeg oo aanu shakhsi dadku weerarsanayno hana loo soo sheego on reeroogi iyo giraadsanayno haddii aanu dawladda cabadayaal u nahay oo aanu dawladda dhibanayaal u nahayna dawladda jawaab degdeg ah hana soo siiso fariintaydana waxaan rajaynayaa inay gaari doonto jananka ciidamada iyo cid kastoo ay qusayso waay tay jaran ku xigeenkii wadanka jananka ka sii ahaa arxanba kalamaanaan kulmin jilbahana hoolan cid kastoo cadaynu baahata waan u haynaa jilbahana hoolan gacmahana hoolan jirkaana laga dilay sidii wax maaragtay cadaawo ah oo la garasho dilay waa hoda garays bay isku lahayn markay dilayeen timahayga safaraa kula tegeen timahayga bifaraa kula tegeen marka haddii ay maxaan ku dhahay dawladdu waxaa kula socoto oo lagu wada socdo war cadaan ah nala soo siiyo oo aan anagu deeskayo wax u qabno haddii si aanu dawladda dhibanayaal u nahay markii horena aanu xarun dawladeed nimid oo aanu xarunta dawladda ku soo eeranay oo aanu dawladdeedii u nimid oo aanu islahayn waxa laydiin qabto oo markii dambe aanu janankayagii la hadalay wixii nagu dhacay oo waxba nalooga qaban waayey dee anigu meelay ka socoto madax meel ka sarreyso la salaaxaa ma jirtee meelay ka socoto maanta u dacwoono oo nabaradeedaa u bandhigno oo aanu maxaan tolay nidhaano waxaasaa nagu dhacay waxaa kaasi u sahlan nabarada jirkayga ku yaal safayn baana lagu dilay inaanu namad yarraay namadeeda u dirno waynu heli karnaa saldhig waa kay xaafadayada inaanu si kaloo maxaa la yidhahdaa waanu intaba waanu heli karnaa waxaasaan rabnaa bal cidda ka dhiman laamihii cadaaladda maadaama jana ku-xigeenkii gaadhnay cidda ka dhimanna inay arrinta nala ogaato waanan wadayaa mar qura ma aamusayo inta arrinkaygu meel lagu tiirinayo ee hooyadayda la dilay qaliin baa lagu samaynayaa hooyaday 6 habeen baanu magaalada joognaa dhakhtar baan ka keenay waxaan ku feer jirib iyo hidh baa lagu garaacay inta qolkana lala galay baa gacan ciidan ilaa aan baralaati noqonay aan laga tagin